بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دوا وري عبد الله أطبق وجوم هالعلنية وإبراهيم سلام أحمد شردة هذه أطبق شبكة عينب النيوس ورباهنة الصومال لان قيبته ويني ورباهنة أفك الصومال كقاعدة شبكة قيبته وين كقالة أطبق وجوم هالعلنية يعني وحوي شبكة قيمة بدن وله ومضى الصومالية دوحي أفك الصومال كقاعدة الله يو الدنيا ده أنت كلامه وحي يعني بوقضاء أي صفة يعني ورد heer sare ay ka helaan oo fiican oo dhexdhexaada inta ka bacdi waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrimo yar yar oo iska koobkooban oo waddanku maanta ka jira arrimahaas ay ka mid tahay arrinta xisbiga kulmiye oo musharaxnimadiisa mustaqbalkiisa iyo cidda hoggaanka waddanka ka bacdi madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya maanta jooga ciddii yani waxa weeyaan kale ee bedeli lahayd waxaan doonayaa kale inaan ka hadlo arrimihii buurmadow oo uu sheegay ka sheegay shirkii uga socday beelaha bariga qabee beel ka mid uga socday magaalada Qurulugud oo iyaduna ah yani waxa weeyaan arrin aan maartay dad badan ku noqotay la yaab arrimahaas ku kooban doonayna ka hadlo jirdeynteena arrimaha hore horta u gelin waxaad ka mid ahayd xisbiga mucaaradka wadani balse waxaad dhawaan iska cashishay xisbigaas oo waxaad ku biirtay xisbiga kulmiye maxaa sababay inaad xisbiga aad ka baxdo oo ka gasho wallahi waxaan horta xisbiga wadani waan ahaa xubin firfircoon waan ka ahay waddankan iyo gudaha markaan tagaba yani waxa weey dadka aad ugu ololiyay baan ahaa laakiin waxa kaliya aan kaga baxay waxa weey xisbiga wadani hoggaankiisu hoggaan fiican buu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro laakiin ajandihii iyo qaabkii loo asaasay xisbigaas baa laga leexiyay waxaana ka leexiyay dad يعني وحوي يجوا أما درجة على أما أركتية كلا ويوجدوا يضد مرت قرعان وتا أي أرنك يعني وحويان كل حي سدا درادد أيان قليه كبحي واجد ويتكبحي بنا مدح لها يعني وحجرت كلها هم كمدها يكد جربتي يعني أيو عنتم ويدي سيدي مركي هروحي بنا يهبكي يقابكي يشوفدي بنا يكسر بحيه سيد اللوجل اللي حيي يعني هو sida uu xisbigu uu ugu sii socon karin wadada uu hayo qolihii ay la muuqatay in laga baxo oo aan ka yani ka diga rugtaabay ahayd waana sunne in yani waxaan xisbiyada u sabaysanay in yani waxa weeye xisbiba iyo aragtideena iyo fikirkeena aynu xor noqono cabiro hadba halka wacan ee waddankan iyo ummadan Soomaaliland dantu ugu jirto in la eego la raaco taasina waxay noqotay inaan xisbiga kulmiye bariga hore qolihii ku jiray markii ururkii asad naga dhacay xisbiga kulmiye aan galay markii uu soo baxayna qolihii ay la noqon weeyday aan ka tagay bariga aan ahaa laakiin aan dib ugu soo noqdo oo wax badan oo fiican oo yani waxa weeyaan loogu soo noqdana aan ku arkay isaga iyo yani waxa weey xukuumadda maanta uu hoggaanka u hayo hogaamiyaha weyn mujaahidka ah Axmed Maxamed Maxamuud Silaay markaad eegtay waxa jira siyaasiyiin badan oo sidoo kale iska cashay xisbigaas markaad eegtay rugtay maxay kula tahay in siyaasiyiinta kale arkeen ay kaga baxeen xisbiga والله وجهي بدن بيلانيسا waxay yeelanaysaa xisbiga wada tashigiisii oo cid gaar ah ku koobnaatay qaabkii iyo wixii loo aasaasay hadafkii loo aasaasay oo laga leexiyay oo kale way yartahay dara shakhsiga qofka uga baxay laakiin wax caam ah ba madaxda hore ee uga baxdayna ay ka yani waxa weeye wada ayay yani waxa weeyaan maartay ay raaciyeen aniguna kuwaas baan ku jiray ahayd in xisbigu uu ka beeray wadadii iyo aragtidii fiicneed iyo يعني وحويان قابكي وسعودي لقدوي اوكي ما يعني انت ياس على الشيء كبعدي ما كلنتين هوغانك حسبيا سوى حريره ما ودا سميسين adigu rag badan oo asxaab aan noo xisbiga ku jira waan wada hadalay kuwa dalka jooga waan wada hadalay halkan kuwa jooga waan wada hadalay sababaha yani waxa weeye sababade yani waxa weeye caadi oo la og yahay oo aanu de fikir aanu qabnay oo fikirkaasi markii de sida noqday aanu uga baydhnay oo baanu iyagana ka wada hadalay wax la isku xibsadana ma jirto Soomaaliland saddex waa dal dimuqraadiya saddex xisbi baynu leenahay qof wal oo Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu hadba halkii danta dadkiisu ku jirto isagoo si sax ah u eegayaan qabiil la u eegayn yani waxa weeyaan dan shakhsiyana u eegayn uu ku biiro oo yani waxa weeyaan wixii uu dalkiisa ku tari kara ku taro waxaad sheegtay inaad ku biirtay xisbiga xaakimka kulmiye bal waxaad noo sheegtaa xisbiga kulmiye maxaad ku doorsatay isagoo xisbi kale oo siyaasi uu jiro oo dalka jiro la yiraahdo ucid sema gacan baa lagu haadayo xil baa lagu wada se bal arrimaha iyaga nooga sheeg
هاوري horta cabdalle marka hore walaal wax kaaga magac leeyahay yani waxa weeyaan ma anigu taa ma qabo waxaanan u qabin cid ii gacan haadisanay ma jirto xisbiga kulmiyana waxaan ku doortay waa xisbi ballaaran waa xisbi yani waxa weeyaan 12 jirsaday waa xisbi markii hore ee aasaaskiisina juhdi badan iga galay buu ahaa iminkana yani waxa weeye ay ka muuqato xisbi Soomaaliland intay leegta isku hayn kara bari iyo galbeedba waa xisbi yani waxa weeyaan hadda lagu tilmaami karo inuu socod bartay oo dhaqaaqay markaas siyaabahaasa igu kalifay iyo horumar uu keenay oo aan la qarin karin oo cad oo Soomaaliland uu ka qabtay haddaynu hoos ugu daadegno su'aalahayna waxaa jira waxgarad iyo siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ka soo jeeda beesha bariga burco oo simig loo taageeray mujaahid muuse biixi inuu xisbiga kulmiye uu saatan u yahay musharaxa madaxweynaha ayna jiraan siyaasiyiin yar yar oo hadda socod baranaysa oo iyagu doonaya inay isu sharaxaan madaxtinimada iyo gudoomiyaha xisbiga iyo bal waxa si adigu warbixin kooban naga siisaa madaxweyne Siilaayo maanta haddii uu xilka ka digo xisbiga kulmiye kee la oran karaa maanta uu sii wada karaa halka uu Siilaayo gaarsiiyay maanta dalka xisbiga kulmiye horta waxaa la aasaasay waqti hore la aasaasay oo fog marka xisbiga kulmiye waa xisbi ballaaran waxaana hoggaanka u hayay marra gudoomiye waa markii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweyne noqday Muuse Biixi Cabdi baa gudoomiye noqday xisbiga kulmiyana ama yani waxa weeye markuu xisbi yahay iyo markuu cidii musharax uu yahay musharaxu waa waxa weeyaan yani waxa weeye shakhsiga musharaxa noqonaya waa shakhsi ballaaran oo Soomaaliland oo dhan iyo adduunyadaba yani waxa weeye saameyn ku yeelanaya wadankana ku yeelanaya waxa qabaa Muuse Biixi Cabdi in uu ugu habboon yahay cidda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo bedeli karto waa nin mujaahida waa nin aqoon-yahana waa nin aqoon yani waxa weeyaan ciidan iyo mid sifil bale waa nin yani waxa weeye wadankan 25 sano uu jirayba yani waxa weeye qayb ka ahaa dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa iyo halgankiisa horena qayb ka ahaa waa nin yani waxa weeyaan aad muhiim ugu ah xaqna u leh in yani wadankan uu hogaamiyo ah aadna waxaan ugu mahad celinayaa beelaha yani waxa weeye qoliyaha taageera yani deegaanada bariga shacabka ka soo jeeday taageeray waxaan ugu baaqayaaba in ay sii xoojiyaan taageerada ay u hayaan musharaxnimada Muuse Biixi Cabdi Axmed Siilaayo ka bacdi jirda waxaa tahay siyaasi aad u daayeer imse xil baad ka soo qabatay xisbiga wadani xubinun firfircoon baan ka wax xil oo aan ka qabtay ma jirin laakiin xubin firfircoon oo u joogta dabadana u joogtay gudaha markay tagtana yani waxa weeye si fiican ugu ololeysabaan ahaa inta badan aniga ma siiyo ahmiyad yani ama xil hel ama dan shakhsiya hel anigu waxaan aad u jecelay hadba halka horumarkeena iyo wadankeenu dimuqraadiyadiisa iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wadajirkiisa iyo يعني waxa way midnimadiisu ay ku jirto hadba ayuun baan taageeraa wax xilana kama hayn kan iminka xisbigan kulmiye hore barigii horena aan ahaan jiraan hadda ku soo biiray aan ahayna wax xilaho aan ka doonaya ma jiro laakiin wadankeena wixii uu gaarsiiyay ee qabtay ayuun baan aad ugu bogaadiyay inaan taageerana ay muqaajib ugu noqoto jirde bal waxaad iyada warbixin kooban naga siisaa waxa jirtay maalmo dhawaad shir ku soo gabagabay magaalada Qorlugud buurmado ayaa ka hadlay shirkaas waxa uu shir laba beelood oo kamid ah Soomaaliya lagu heshiisinayay wuxuu ka hadlay arrimo badan buurmado oo runtii aad la isu weydiinayo adigu iyagu maxaad arrimaha iyaga aad warka haysa wax xiriir sama la sameysay buurmado intii uu ka hadlay arrimahaas oo khuseeya inta badan siyaasadda boqor Cismaan buurmado warta wuxuu kamid yahay salaadiinta yani waxa weeyaan deegaanada bariga beelaha degu kamid yahay waqti hore 2000 la doortay beel kamida beelahaas bariga ayaa dooratay laakiin waa nin aad moodo ama yani waxa weeye waa shakhsi aad moodo oo yani sandalada beelahaas ama yani waxa weeye cidda ay ka go'do iyo beelahaas inuu barbar marsan yahay waxaana wallahi aad aan uga xumaanay hadalladu ku hadlayay beeshuna waxay leedahay hoggaan dhaqan bay leedahay suldaan guud bay leedahay suldaan Cabdullaahi suldaan Cali oo la naqaan bay leedahay salaadiin kale oo ixtiraam badan loo hayay bay leedahay marka waxaad moodaa wallahi boqor buurmadow inuu had iyo jeer yani waxaan isaga loo igman uu ka hadlo talada dhabtee biyo dhibcaanka iyo yani waxa weeyaan goostambeedkuna reerku cid buu u igmaday madax dhaqameeda siyaasiyiin buu leeyahay madax dhaqameed buu leeyahay ixtiraam leh oo sharaf leh aan idaacadaha ka hadal waxaan arkaa in boqorka isagoo ka hadlaya ii sheeg South Africa marka hadlaya mar Ethiopia ka hadlaya marka hadlaya Allahumma salli ala Muhammad ii sheeg yani adduunyada ka hadlaya marka anigu waxaan u arkayba inuu waxa u fiicneed inuu xagga siyaasadda isaga bayro aad iyo aadna uma taageersanin waana ku diidanahay
sandaladii somalilandna iminka waxaabad moodaa inay faraha ka baxday 1991 markii waddanka la soo galay somaliland يعني deegaanadeeda ama beelaha magtana beesha dhaxo kale 10 suldaan bay lahayd ama 10 isim ama boqor ha noqdo ama suldaan ha noqdo maanta boqol bay maray maanta waxaad yani aad arkaysaa marmarka qaar aad soo dhisa caaqilka ka ixtiraam badan wixii sandalada loo oran jiray nin walba wuu qaat marka aad iyo aad ba hadalkaas loo diiday waana ka soo horjeednaa afka beeshana qof waliba wuu ogyahay inuu ku hadli karin beesha iyo deegaanada dadka ka soo jeeday reer Soomaaliland oo ay leeyihiin cid ay ka goodo taladooda